الخطيب البغدادي nin caalima oo funuun badan caalim ku ahaa fanu lxadiidna alxaafidu fii casrihi ahaa isagoo baqdaad jooga ayaa waxaa loo sheegay baqdaad inuu soo galay sheekh la yidhahda ismaaciil ibnu axmed adariir ismaaciil ibnu axmed adariir waa kitaabka bukhaari la yidhahda ragga wariyey kashmiheni ayuu raggii ka wariyey ka mid yahay markii loo sheegay ayuu wuxuu soo kaxeeyey ardadiisii ama culamo kale ay wada socdeen bayse soo raaceen wadaadkani waa safar nisaabuur buu ka yimi makuu ku socdaa safarkani wuxuu joogayaa habeen ama 2 habeen ama 3 habeen magaalada waana safar socota waxa ay rabaan sheekha socotada ah in laga reebo kitaabka bukhaari iyo dhammaantii bukhaari maca mukararaadkiisa marka lagu daro 7,000 oo xadiis buu ka badan yahay 7,000 oo xadiis baa waxaa la rabaa in laga reebo qof socoto ah oo safar ku jira habeenkii koowaad bay u yimaadeen maqribka ilaa salaadii subax ayay ku akhriyeen yani salaadii maqrib markii laga baxay bay akhriska bilaabay alkhatiib albaqdaadi baa akhrinaya sheekhuna kitaabkiisu haystaa wuu u saxaya ardada kalena kutubtooda ay haysataa way saxanaysaa wixii uu sheekhu markaa tasxiixiyo waa la saxanaya wixii ishkaal uu ku jiro waa la weydiinaya waana la dareerinaya la wadaa salaadii maqrib buu bilaabay ilaa salaadii subax baa la fadhiyey waa la kala tegey habeen labaadkii baa laysu yimi salaadii maqrib baa la bilaabay ilaa salaadii subaxee dambaa la fadhiyey maalin saddexaadii goor barqaa baa la yimi barqadii baa la bilaabay ilaa iyo salaadii maqrib baa la waday salaadii maqrib kadib baa la bilaabay ilaa iyo salaadii subax baa la waday waxaana la dhameeyey kitaabkii bukhaariga ahaa waa 3 jalsadood ayaa waxaa lagu akhriyey mawsuucada imaam albukhaari warinaya 7,000 xadiid ka badan waxaa lagu akhriyey 3 jalsadood waxay tilmaamaysaa yani surcat alqira'a way sheegaysaa qiraa'adoodu say u degdeg badnay waxay kaloo sheegaysaa siday u danaynayeen cilmigu uu qiimaha ugu fadhiya nin socoto ah in kitaabka bukhaari laga reebo lagu talagalay isla imaam khatiib albaqdaadi ayaa maka tegey wuxuu la kulmay gabadh la odhan jiray karima bintu axmed almarwasiya oo iyana ka mid ah sheekhii hore ardadii ay ka wada qaateen alkushmihani kushmihani waa raawiyat albukhaari ninkii wax ka wariyey alfiribri baa ah raawiyada bukhaari wax ka wariya kushmihani rawaadiisu ka mid yahay kushmihanigaasa dariirka iyo kariimiba ka wada warinayaan kariime markuu u tegeyna kariimi waa islaan gabowday oo 100 iyo dheeraad sano jirtay oo aan guursanin caalimad ahayd karima 5 jalsadood buu bukhaari ku dul akhriyey khatiib albaqdaadi 5 jalso 5 fadhi ayuu wuxuu kaga qaatay inuu ku dul akhriyo kitaabka bukhaari oo dhan alimaam ibn alxajar alcasqalaani ayaa waxaa la weydiiyey sidaa uu sameeyey khatiib albaqdaadi oo kale adigu marna qiraa'o ma samayso wuxuu yihi maya laakiin aniga qiraa'adaydii bukhaari aan sheekha ka qaatay anigu 10 majlis baan kaga qaatou leeyahay 10 fadhiyo qura laakiin haddii la isku wada dari lahaa buu yihi 10ka fadhi ay xidhiidh noqon lahayn sidaa uu khatiib albaqdaadi ba tiisu xidhiidhka u ahayd tiradu way ka yaraan lahayd buu leeyahay intuu ku qaatay in ka yar ayay noqon lahayd markaasuu hadalka sii wada wuxuu yihi walaakin ayna athuraya min athara laxuhu xidigaa la yidhahda xaggay ka joogaan ciidda waayo khatiib albaqdaadi buu yihi hiraayad akhriskiisu fii gaayati sixa waljawda buu ahaa buu yihi waa qiraa'o aada u saxiixa oo qurux badan bay ahayd buu leeyahy oo loo faa'iideynayana ardayda dhinacyadiisa joogto oo uu maqashiinayay majliska dadka joogo dhamise ay wax u saxdaan